بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلهي ومهده نبض يهور مركا يدلكين حرتا إنغون مامورين نسي waxay soo dhamaaday saddexdii maalmood ee hore ee ololaha iyo barnaamijyadii oo si nabad ah inoogu dhamaaday ilaahay waa mahaddaale qaranka oo dhan baan hambalyeynaya ciidamada amniga hambalyeynaya xisbiyada oo dhan baan hambalyeynaya waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolada iyo degmooyinka iyo tuulayaasha iyo meel walba cududii ay muujiyeen iyo niyad samidii iyo kalgacalkii ay u muujiyeen xisbiga kulmiye iyo xukuumadooda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa saddexdaa hore ilaahay si wanaagsan oo nabadu inoogu dhameeyay dhammaan qaranka waa hambalyeynaya xisbiga kulmiye saddexda cishaha hadhay saddexda waa wadaya barnaamijyadii fagaarayaasha maalinta jimcaha ah oo maalin cibaada waa soo gaabinaynaa saacadihii barnaamijyada jiray si salaada loo tukado waxa kale oo ku daraynaa inaanu samafal bixino cusbitaalada iyo xeryaha agoomaha gobolada oo dhan hawshii waa laba hawlood hawsha cibaadada iyo samafalku waa soconaysa hawshii qaran ee ololaha iyo xisbiguna waa soconaya waana iswaafaqaya waxaan u baaqayaa oon ka codsanaya taageerayaasha kulmiye meel ay joogaanba inay nabadgeliyo ku soo baxaan inay nabadgeliyada aad iyo aad u ilaaliyaan xilgaar iska saaraan ma ogolin dhalinyarada kulmiye inay wax falxumo ah ama xisbiyada kale wax u dhimaaya ama qaranka nabadgelyada waxyeeleynaya ma ogolin mana ogolin in magaca kulmiye cid ku labisan ama astaanta oo ay ku kacdo wax sharciga ka baxsan ama xeer nidaamka ololaha taa waa ku celinaya u dulqaadan kara mayno qof calaamada kulmiyesta inuu ku xadgudbo sharciga ama dhibaato dadka u keeno kulmiye wuxuu taagan yahay midnimo iyo nabad iyo asluub wanaag iyo horumar taa ayaan laga bixin haddii aan soo koobo mawaadiicda ugu muhiimsan ay ka hadlayaan axsaabta iyo murashaxiintu saddexdii maalmood hore waxay ahaayeen caafimaadka waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha waxaan isleeyahay murashaxiinta kale arrintaa waad uga dhowdiye xisbi ahaan iyo qof ahaanba afeef horta marka hore markaan ka hadlaya murashaxiinta kale waxaan doonayaa inaan caddeeyo muwaadiniinta somalilan xeerku ayaa qeexaya xuquuqda u siman yihiin qurba joog iyo daljoogba la iskuma eedeyn karo lagama xigsan karo qof waa qurba joog xuquuqta waddankuu la mid yahay lama kala sooci karo waa qalad waxaanan soo qaadanaynaa xeerka muwaadinka oo sheegaya 26 juun qofkii labadiisa waalid halkan ku noolaayeen inuu yahay muwaadin somaliland qurba joog wax badan bay dalka tareen dhaqaalay tareen horumar bay keeneen aqoon bay keeneen waa qadarayna waa ixtiraamayna laakiin marka qof lala hadlaayo ayuu ku dhex dhuman qurba joog saddex murashax aan ku tartamaynaa waxa laga hadlay tacliinta labada murashax ee madaxweynuhu sharaxan labadaba waxa hogaansanahay tacliinta Soomaaliland halkay marayso dhibaatada qabto horumarka sameynayso waxay u baahan tahay waayo aniga gurigaygaan ka ogahay dhammaan carruurta wax dhigtaa dugsiga Soomaaliland laga bilaabay elementary ilaa jaamacad marka guriga ka dareemaha progress ay sameynayaan iyo waxa dhiman iyaga carruurtooda iskuulada ma dhigtaan waa kala duwan distoorku wuxuu dhigayaa ninka dalka iska sharaxaya ee baasaboorka Soomaaliya haysta xaq buu leeyahay iska sharaxo Soomaaliland laakiin waa inuu labada sano dib deganaada taa waxaad moodaa inay ka dhigeen xeerka waafajinta ninna xaaskiisa carruurta halkan mu keenin iyagu ma deganaa dareenkuna waxay markuu fahmayaan wax la qashanay dalka caafimaadku waa la mid aniga cusbaalkaygu waa ka Soomaaliland waa dhakhaatiirteena iyagu hadday duray qaadaan GPS-ki Finland bay tagaan taasina sax ma marka madaxweynuhu qasarka waa la wadaagtaa adii faamilkaagu waa faamilaasha kale aniga hooyadoosteeda jira waxa qalliin degdeg oo culus bay u baahatay dhowr sano ka hor doctor biixi electrocom baa qalay waana ku guuleystay mid aad u culus waa dhakhtarada progress ay sameynayaan iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin private iyo public ba waan uga xogaarsanahay waxa ka jira oo waa in aanay ogeyn iyagu dulxaas bay ka hadlayaan to horumarinta dhaqaalaha waxaa laga yaabaa inuu qof bangalka eegayo anigu waxaan ogahay oo xisbiga kulmiye tahay ujeedadiisa koobaad iyo fishankiisu inay ogaadaan qofka Soomaaliland xeerada waxa ku jira oo qofku cunayo iyo tayada cuntada uu cunayo muhiimada kooda qofka hadaan cunaynin uu gaajoonaya qof gaajoonayna waxa tarimay marka anaga waxa loo qorshaa in la soo saaro cunto ku filan dalka
qorshaheedina waa dhammaystiray dalku wuxuu u baahan yahay 432 oo tan oo carbohydrate wixii aan duxlahayn garow bariis qamadi basto sawtorik haddii aynu qiyaasnay dalkeena intaas ay ugu soo saaraa iyo 22 saliid ah hadda oontii xoolo way noo dheertay kalluunki waxaynu u baahannahay inaynu ka beero gobolba 6 gobol 13 kilomitir oo qura waanu helaynaa meel biyo 13 kilomitir oo ka muuqdo aanu ka ahayn beero waxaan oo qorshe sida kale dhaqaale u baahan 7% miisaaniyadda dalka ayaa cuntada soo saaraysa food security kulmiye waxa ka go'an 5 sano dambe haddii la yahay qorshe ku jirta in uu 2022 ka gaarsiiyo in 8% cuntada la soo baxo waxa la beerayaa 13 kilomitir oo qura gool walba balsanaag inta leegtay 13 kilomitir laga beera togdher waa inta leeg hargeysa banka wajaala waa 5 kilomitir taasina waa cuntada waa wax hogaansanahay qolooyinka jira waxaan ummadda u sheegaynaa kulmiye haddii aan nahay inaan xoog ogaalnimo iyo dareen wadaag bulshada Soomaaliland anagu qorshaha iyaga iyo waxqabadkooda kuna salaysan laakiin labada qorshe kale ay u baahan tahay mala awariyo oo yeeri doona taanada lagu hogaamiyo taasina waa iga cadayn mar labaad waxaan ku celinayaa xisbiga kulmiye taageeraysa nabad inay ku ololeeyaan oo aanay wax qadafa iyo wax gardaraa sameeyeen oo ay ka reeban tahay saddex cishadana waa wadaynaa maalinta jibcaana cibaadada iyo hawsha waa isku wadaynaa aad iyo aad baa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh